dikriga ama xuska Allah waxa uu ka mid yahay waxyaabaha Allah loogu dhawaado jaceylkiisana lagu gaaro. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu addoommadiisa ku amraya in ay mar weliba xusaan dikrigiisana badiyaan si ay u helaan dhawaanshadiisa iyo gargaarkiisaba. inta badan bani aadamku waxa uu xooga saaraa sidii uu ku korin lahaa jirkiisa, wuxuuna dadaal badan ku bixiyaa sidii uu uga badbaadin lahaa caafimaad darrada iyo dhibaatooyinka soo wajahayo. balse waxaa xusid mudan in insaanku uu u baahan yahay sidii uu ku dhisi lahaa ruuxdiisa, ugana hortegi lahaa dhibaatooyinka faraha badan taasoo kaga imaanayo amba ay sababi karto ka fogaashada dikriga Allah, iyo inuu la kulmo culeysyo fara badan ay ka mid tahay inuu dareemo qalbi qalayl, murugo, xasilooni darro iyo inuu gacanta u galo shaydaanka maadaama uu ka fogaaday dikriga Allah. ruuxda qofka muslimka ah waxa ay u baahan tahay in la quudiyo sidaba jirka bani aadamka uu ugu baahan yahay inuu helo nafaqo u horseedo caafimaad wanaagsan. dikriga ama xuska Allah waa quudka qalbiga iyo ruuxda qofka muslimka. haddii uu waayana waxa ay keenaysaa in uu noqon waayo sidii laga rabay. diinta islaamka waxa ay noogu yeeraysaa in aan noolano ruuxdeenna iyo qalbigeenna si uu u wanaagsanaado xiriirka Allah iyo in aan helno nolol wanaagsan. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa kariimka ah nagu amrayaa in aan badino dikrigiisa ama xuskiisa, wuxuuna ku leeyahay suuratul axzaab aayadda 41 kuwa Allah iyo rasuulkiisa rumeeyeyow xusa Allah xuskiisana badiya, habeen iyo maalinna u tasbiixsada. Allah meel kalena waxa uu ku ammaanay kuwa xuskiisa badiya, mar walibana u taagan xuskiisa, wuxuuna u ballanqaaday in uu siin doono dembi dhaaf iyo inuu ku karaameyn doono jannadiisa. sidoo kale xuska Allah waxa uu keenayaa in ruuxda iyo qulubta ay xasilaan, deganaashana uu Allah siiyo. Allahna waxa uu leeyahay isaga oo tilmaamaya xasiloonida lagu helayo dikrigiisa iyo xuskiisa, xuska Allah waxaa ku xasisho qulubta. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ruuxa rabbigiis xusayo tilmaamtiisa iyo ruuxa aan rabbigiis xusaynin waa sida ruux nool iyo ruux dhintay. xadiiska waxa aynu ka fahmaynaa ruuxa u taagan xuska Allah in uu yahay ruuxaas ruux qalbigiisu uu nuurayo, iimaan fiicanna haysto. balse ruuxa haddii uu ka fogaado xuska Allah waxa uu noqonayaa sida ruux xayaatadii ka baxday oo kale. haddaba maxay tahay waxyaabaha ku gaarsiin karo inaad noqoto ruux badiya xuska Allah? waxyaabaha kugu saacidi karo xuska Allah waxaa ka mid ah: marka ugu horreyso, xuska Allah waxa uu ku gaarsiinayaa in aad ku hesho jaceylka Allah, in lagaa fogeeyo shaydaanka iyo waswaaskiisa, in qalbigaaga laga zuuliyo murugada iyo walwalka faraha badan, in aad ku hesho farxad iyo sacaado, in lagu barakeeyo risqigaaga, in uu ifo wejigaaga iyo qalbigaagaba markii aad badiso xuska Allah. gabagabadii, in aad badiso xuska Allah waa arrin aad u muhiim ah, waxaadna ku helaysaa in uu Allah ku siiyo raalli ahaanshadiisa adduunyada iyo aakhiro intaba. maalinta qiyaamahana waxa aad ku gaaraysaa ama aad ku helaysaa in uu Allah ku geliyo jannadiisa. kelimatu laa ilaaha ila Allah waa kelimatu tawxiid, waa kelimada sababteeda loo abuuray koonkan iyo waxa ku dhex jiro. waa kelimada markii uu insaanku ku dhawaaqo qalbigana ka rumeeyo loo tixgelinayo in uu yahay muslim. waa kelimada markii uu ruuxa diido loogu yeerayo kaafir. waa kelimo xambaarsan macno aad u weyn kaasoo tusinayo cadamada Allah iyo in uu yahay Allah mutaystay in isaga oo keliya loo gaaryeelo cibaadada, camalka, jaceylka iyo tala saarashada. sidoo kale waxa ay ka mid tahay kelimadan tiirka ugu horeeyo ee 5 tiir oo islaamka. waa kelimo ruuxa haddii uu rumeeyo uu ku helayo sacaado adduun iyo mid aakhiro intaba, cadaabka Allahna uu uga badbaadayo. Abu Hurayra Allah ka raali noqdee waxa uu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam: rasuulkii ilaahayow, dadka yaa ugu sacaado badan shafaacadada maalinta qiyaamaha. markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi: waxaan maleeyey inuusan ruux aan adiga ahayn iweydiin doonin su-aasha aad maanta iweydiisay markii aan arkay sida aad ugu dadaalayso. markaasuu rasuulku ku yidhi Abaa Hurayra: dadka kuwa ugu sacaadada badan maalinta qiyaamaha uguna dhow shafaacadeyda waa kuwa yidhaahdo ama ku qowlo kelimatu laa ilaaha ila Allah, qalbigoodana ay ka soo go'do iyaga oona yaqiinsan waxa ay xambaarsan tahay. rasuulka meel kalena waxa uu ku yidhi: ruuxii yidhaahdo laa ilaaha ila Allah isaga oo yaqiinsan waxa ay xambaarsan tahay, Allah waxa uu ka xarimaa korkiisa naarta. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaam ka bixiyey kelimadan waxa ay tahay, wuxuuna ku yidhi suuratu Ibraahim aayadda 24 isaga oo ka hadlayo kelimadan macnaheeda iyo waxa ay xambaarsan tahay: alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan dayyibatan ka shajaratin dayyibatin asluha thaabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla hiinin biidni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-naasi la'allahum yatadhakkaruun. Allah waxa uu ku tilmaamay kelimatu laa ilaaha ila Allah sida geedka timirta oo kale. jirideeda waa ay dheer tahay oo waxa ay si fiican ugu jirtaa dhulka, faraceeduna waa mid aad u sareeyo, waxa ayna miraynaysaa miro aad u macaan badan oo nacfi leh laguna dheefsan karo. dhanka kale, Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay kufriga in uu yahay wax aad u xun, wuxuuna ku yidhi aayadda 25 ee suuratu Ibraahim:
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. waxa aynu ka fahmaynaa aayadahaas in uu Allah subxaanahu wa tacaala isbarbar dhigay kelimada wanaagsan ee tawxiidka iyo kelimada kufriga, wuxuuna Allah noo cadeeyay in aysan isku mid ahayn. kelimatu laa ilaaha illa Allah waxa ay leedahay fadli badan, waana keedka qofka muslimka ah uu maalinta qiyaamaha ku heli doono darajeen wanaagsan iyo abaalmarinta Allah. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi waxaa jiro nin ka mida ummadayda ee lasoo joojinayo maalinta qiyaamaha, markaasaa waxaa loo soo bixinayaa waraaqo gaarayo 99 waraaq oo ay ku qoran tahay mid weliba waxyaabihii xumaanta ahaa ee uu sameeyey inta uu joogo adduunyada. waxaa loo soo joojinayaa xisaab, markaasaa Rabbi wuxuu ku leeyahay waxyaabahan oo aad samaysay ee xumaanta ah ma inkirsan tahay? markaasuu wuxuu leeyahay maya yaa Rabbi. Allah ayaa waxa uu leeyahay malaa'igtiidii miyay ku dulmiyeen oo wax been ah miyay kaa sheegeen? markaasuu leeyahay maya yaa Rabbi. Allah waxa uu leeyahay wax cudurdaar ah ma haysataa? wuxuu leeyahay ninkii maya yaa Rabbi. Allah waxa uu leeyahay wax wanaag ah oo aad horay u samaysay ma jiraa? markaasuu wuxuu leeyahay maya. Allah waxa uu leeyahay innaga ayaa ku hayno wanaag aad samaysay, maantana waxba lagama inkirayo. waxaa loo soo bixinayaa waraaq aad u yar, markaasuu ninkii leeyahay yaa Rabbi, waraaqdani maxay ka taraysaa waxa aan sameeyey oo xumaan ah? markaa waraaqdii ayaa la furayaa, waxaaba ku qoran ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh. waraaqdii waxaa la saarayaa miisaanka kafkiisa, waraaqihii kalena waxaa la saarayaa kafkii kale. waxaa raajix noqonayso kafkii ay waraaqda tawxiidka ku qornaa saarneed, sidaas ayuuna ku badbaadayaa ninkii. haddaba maxay tahay waxyaabaha aad ku helayso kelimadan? marka aad badiso laa ilaaha ila allah waxaad ku mutaysanaysaa jaceylka Allah. waxaa kaloo ku helaysaa nuur aan kaa damin inta aad ku dhex jirto akhriskeeda. waxaa lagaa dhowrayaa shaydaanka iyo acwaantiisa, sidoo kale naarta ayaa lagaga fogeynayaa. maalinta qiyaamahana waxaad ku helaysaa abaalmarinta Allah ay ugu horeyso daartiisa jannada iyo raalli ahaanshadiisa. guntii dhagaystow, aan ka dhigano dhaqan in aan badino laa ilaaha ila allah, carabkeynana aan uga caado yeelno si aan ugu badbaadno inta aan joogno adduunyadan, maalinta qiyaamahana aan ku helno abaalmarinta Allah. istikfaartu waa u noqosho iyo qirasho dembigii aad ka gashay Allah iyo inaad ka qoomamayso waxyaabihii kaa dhacay, aadna la timaado ictiraaf iyo baryo si Allah kugu dhaafo wixii kaa dhacay. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu abuuray insaanka, wuxuuna amray inuu caabudo isaga oo keliya, wuxuuna ka reebay inuu ku caasiyo ama uu ka hor yimaado amarkiisa. balse bani aadamku sida uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegayba waa mid aan ka fogaan karin inuu qalad ka dhaco. mar weliba dabeecadiisa waxaa ka mid ah inuu gafo ama uu dembi ku dhaco. sidaa darteed Allah waxa uu noo jideeyey in aan la imaano istikfaar iyo u noqosho xagga Allah, wuxuuna Allah ka dalbaday addoommadiisa dhammaantood in ay weydiistaan dembi dhaaf, mar welibana u noqdaan xaggiisa. wuxuuna ku leeyahay qur-aankiisa kariimka ah suuratu Huud aayadda 3 isaga oo amraya addoommadiisa in ay la yimaadaan istikfaar. wa an istakfiruu rabbakum thumma tuubuu ilayhi yumattickum mataacan xasanan ilaa ajalin musamma wayu'ti kulla dii fadlin faddah wain tawalluu fa innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin kabiir. aayaddani waxa uu Allah nagu amrayaa in aynu xaggiisa u noqono dembidhaafna weydiisano, wuxuuna noo ballanqaaday in uuna siin doono nolol wanaagsan inta aan u taagannahay in aan u cararno xaggiisa. bani aadamku sida uu rasuulka noo sheegayba waa mid aan ka dheeraan karin inuu qalad la yimaado, balse waxaa mar weliba wanaagsan in ruuxa uu Rabbi xasuusto naxariistiisa iyo karamkiisa, kuna dadaalo inuu badiyo baryada Allah. maxaa yeelay Allah waxa uu jecel yahay addoonka ku celceliyo weydiisashadiisa, mar welibana taagan albaabka Allah. mana wanaagsano in ruuxa uu ka quusto raxmadda Allah iyo naxariistiisa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay bani aadam dhammaantii waa mid gaf badan, balse kuwa uu khayrka badan waa kuwa ka soo laabto gafka ay galeen. xadiisku waxa aynu ka fahmaynaa in ruuxa uusan ka fogaan karin inuu gafayo, waxaase layska doonayaa in mar weliba loo noqdo Allah. sida aynu ognahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa makhluuqaadka midka ugu khayrka badan, Allah agtiina laga jecel yahay, Allahna uu karaameeyey. ayadoo sidaas ay tahayna wuxuu ahaa rasuulka in uu Rabbi u noqonayo dembidhaafna weydiisanayo in ka badan maalinkii 100 jeer. haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa ahaa, asiga oo weliba loo dhaafay dembigiisii kii hore iyo kii dambe, annaga maxay tahay midda nalaga doonayo innaga oo weliba gafkeenu badan yahay? waxaa xaqiiqo ah in aynu u baahannahay inaan u noqono Rabbi dembidhaafna weydiisano mar weliba. Allah waxa uu ku leeyahay qur-aankiisa kariimka ah isaga oo ka hadlaya qiimaha iyo faa'iidada ay leedahay istikfaarta iyo waxa lagu helayo haddii la badiyo. wuxuu ku leeyahay suuratu Nuux aayadda 10 iyo midda 11 faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursilis samaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin
wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. aayadahan waxa aynu ka fahmaynaa in ruuxa haddii uu allah ka dalbado istikfaar iyo dembidhaaf uu ku helayo in uu allah u dhaafo gefkiisa, culayska noloshana uu ugu bedeli doono allah fudeed, ducadiisana laga aqbali doono. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, waxaa liibaanay ruuxii ka helo saxiifadiisa istikfaar fara badan. taasi waxa ay macnaheedu tahay in aad badiso istikfaarta waxa ay ku gaarsiinaysaa inaad maalinta qiyaamaha kuu buuxso miisaankaaga. haddaba maxay tahay waxyaabaha aad ku helayso haddii aad badiso istikfaarta iyo u noqoshada allah? in aad badiso istikfaarta waxa ay ku horseedaysaa in uu allah kuu dhaafo gafafkaagii, aadna ku hesho nolol wanaagsan adduunyada, maalinta qiyaamahana aad ku hesho ajar badan, in dacwadaada lagu ajiibo, dembidhaafna lagu siiyo, in lagu saqiro umuurahaaga adduun iyo aakhiro intaba, in uu allah qalbigaaga geli doono nuur badan oo kuu horseedo inaad waddada xaqa raacdo. guntii waxaa wanaagsan in aad badiso istikfaarta allah si aad ugu liibaanto nolosha adduunyada, maalinta qiyaamahana miisaankaaga uu u buuxsamo, aadna u hesho jaceylka allah.